طيب بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada som IT so nala socotaan website-keena iyo Facebook iyo YouTube channel-ka like subscribe aad baa mahadsantihiin weli network plus waxaan soo gaarnay community iyo gabagabadii course-ka halkan waa cashirkii ugu dambeeyay koorsada network plus waxaan baranaa cashirkii ugu dambeeyay oo ah wireless oo ah yani raagaas korkiisa jihaaska saaran waa device saaran oo laba antenna leh inta laba antenna kale waa afar antenna يعني مرة قارو حولي هال أنتينو مرة قارو حولي لو سدح أفر يعني هتبوا يعني أود قفك وربو إنه حيركو جارو سرعة إيو مسافة ديستانس يو قفك إنه جارسيو وارلسكا أيا بدنا يعني أنتينو بطان إنه عيسى مركا عشر كودن بي أمريكا كلنا كورسي نتوك بلاس نوا إنه بشكل كودن بي كورسي نتوك بلاس إمكان كورسي أنت صورني وحنا كان قاعدين كم gabagabadeeda insha Allah waxaan rajeynayaa in aad faa'iideysan doontaan marka cashir ugu dambeeyay aan galo okay waxa way two different implementing of wireless not LAN يعني wireless-ka waxa ka leeyahay LAN-ka يعني mid waxa jiro WLAN loo yaqaan waa LAN-ka يعني wireless networking iyo mobile user connectivity mid oo shabakad ahaan anaga isticmaalnay mid mobile marka anteenada markii loo faraaco yahay faraacan anteenada aan waxreeyaa WiMix ama microwave ama waxyaabo kale nano ama waxyaabo kale wireless ka shaqeynay oo WLAN ah marka si isku xiro labadan faraac noocaas waa wireless sare waxa kale jiro wireless kale oo yar asina access point ah oo yani device access point la keento oo isku xiraya laba laptop ama mobilada wax isku xiraya في شبكة أب ونقطة مركب لوضع صناع جرته أوكي وده wireless LAN wireless كم حاجة يعني wireless كا يعني وان إيمان wireless مجرو يعني لكن مانك بدنا هو استعمالنا وهذا بدنا مانك مركز wireless كو قبل LAN وصوكه ويعني شركات جالسين تكله تعورض wireless صح كفرن WiMix أم ميكرويف أم لينك كله أم ليزر لينك أو يعني كفراية لو فرع سي communication كا أو ده أو cellular phones كا تلفون قاعدة okay local إنه هذا in building or campus for mobile users إنه بدها اسمها أم campus أهان استعمالها mobile users أقل استعمال أما radio infrared دوجرو WiMix أو وينه كاس يعني جهازي كله دون استعمالها لكن أم موبايل شقة كلهن أما كمبيوتر يحاول في الوارس كل شقة كلهن customers كإنه توفيري أما customers إنه سيو wireless خدمة أهان سي لعق لو قاعد إنترنت كام محنوع عصبي أوكي LAN local area network لو شايفين إنه وصلت بحرية سيرفر كنت ياله إنترنت بحرية هاي تبع السويتش كياله خابكي الكمبيوتر اللابتوب يسكحون مركا wireless بحرية كذا سي الكمبيوتر بشغله فيلا قيمة يعني مش كبحناية أوكي نوع عصبي كرتان جروب كله ولا جروب كروا نوع عصبي بحرية واردة جروب كان كلام تاع access point كرتو وكنا نشين كرا نو جروب برينتر كي اللابتوب يدي موبايل يعني سعادة سنية أوكي وحيرتو تابع wireless LAN تبرجع أو لاب أوجي وعم تقول access point access point واي لو جينا لا wireless مركز دور لابتوب وحجر وشغالة شقيناين أو يعني access point أهان وشغالين يجوا فيل يوحبوا عن مسؤول دالين أما فرع سوال فري مركز اللي كمان قارئ فيلي يحل استعماله وعلى استعمال access point أما wireless أو فلود سي مركز يعني WLAN اللي يقانه سي مركز connectivity عادي شكله شخص أقفل بقى سميش في اللابتوب شكله تحدي مركز wireless وحاول بيان مركز الريبيتر إشارة أما signal كوات وقابته اللي كان wireless الريبيتر أوكي سي إشارة وسي بديو أما خف دوقة وسجود سوق قاعد دوقة سرين wireless كمركز دوقة ويشوف يعني wireless كا يعني مجاري سيدو استمع ذا من واقع كمجاري مركا وحلو باي ريبيتر من دوقة إحنا ليه سي أو كوريوس لو ده جالسي wireless كا أوكي peer to peer configuration أجر أطهر بيلادون peer to peer كا يعني حواي توبولوجي لو استعماله يعني إنترنت كواي إنترنت كوحلو بحرا كمبيوتر أما لابتوب أوكي اسمها مكوسا ويالو نحلي جوا أفر شبكة أبحر كرتا سي wireless أو اسمه حرمة أفرد شبكة waxaa laga yaabaa inaysan fiilo aan isku xiriirsanin balse qaybta dhexe waxay dhigaysaa WLAN si markaas isku gudbiyo oo noociisu yahay triple E
802.11b viruska waxaa loo qaybiyaa 3 nooc qayb waxaa jirto IEEE ayaa qaybisay waa 802.11b ama 11a ama 11g ayaa loo qaybiyaa marka 11n noo jira laakiin kaas waa nooc kale marka markuu 11b uu yahay waa gigahertz 2.4 gigahertz waaye oo meel gaaban u gaaraya laakiin markuu oo yahay waa 5 gigahertz waa meel fog oo gaaraya markuu yahay 11g na 2.4 gigahertz wuxuu ku leeyahay يعني 11b waa worldwide adduunka laga isticmaalaa surcadiisa waa speedkiisa 11 megapixel 11 megabit per second ayuu connectivity gudbinaya markuu yahay 11 eegana waa USA laga isticmaalaa waa 54 megabit per second markuu yahay 11g na wuxuu yahay worldwide adduunka laga isticmaalaa waa 54 megabit per second marka anaga badan waxa isticmaalnaa labadan isticmaalaa kan dhexe waa Mareykan US laga isticmaalaa waxweyn maan anaga isticmaali karnaa kan waa wax ku sheegay oo range-giisa masaafada uu gaaray speed-kiisa iyo surcada uu ku socdo inta feet uu gaari karo waaye marka yani wax kale oo guur wireless wuxuu leeyahay security ilaa naadiya wireless suurta ka furto qof walba inta laptop ama mobile-kan uu ku soo xirmayo shabakada kadib waxaa dhacayso in system-kaaga nin kale soo access garayo asigoo oo adiga aad ogaanin ama wax badan oo ka qarabo marka wireless wuxuu baahan in security la sameeyo security kaas oo ah SSD-ga oo access point ama wireless ku qaadabo adoo isticmaalay version-kiisa wired equipment privacy oo MAC address authentication means MAC address ka qof garato baa yani ku xirmay si kale muu xirmay marka badan waxay sameeyaan karaan spoofing ama sniper ku sameeyaan waa jabsan karaa security xogaa aad yani u hooseeya waxaa kale jiro wireless protected access address oo pressured key ah oo sin yani lagu gali karo pressured key markaas oo macruuf ah oo dadka wada yaqaanaan lagu gali karo oo baasud ahaan loo gelinayo si authentication ku sameeyo oo mid noqoto shabakada soo isticmaalaya encryption key TKIB ama IS soo isticmaalaya marka security waxa kale jiro wireless protected access to version kala saaray si surcadiisa si yani authentication-kiisa high loo dhigo strong authentication loo dhigo encryption-kiisa soo isticmaalaya accuracy-kii ah yani IS okay halkaas ay ku egtahay course-een network class-kii aan soo wadnay intii muddada ahayd intii la socotay aad dumaastay intaan soo in maxay fiirsan doontaa marka waxaan rajaynayaa casharada aan aad soo kaabinayo halkaas course-een soo gudbooday qofkii rabo course-een marka inuu yani oo imtixaano ama shirkad caalami ah oo ka imtixaano يعني وحسبين كرا عشان كلاسي راديو intaan kaliya waan ku sii badnaan kartaa aniga qaab u sharaxin wax badan ka tagalayaa wax badan soo koobay markaas video oo dheeraan marka qofkii u baahan in slide-ka soo codsado email ka qoran iyo Facebook aan laga soo hadlo maxay yiraahdaan aad baan maasantiin yani inta marka ku kulmi doono shaqo noocan oo kale yani waxa la yahay jannah caadil oo leh nabaadiino